waxa uu arkay xaaskiisii oo dhoola cadaynayso nin gaari kala soo degtay isla markaana xabsiinaysa isagoo caro tabcaan la ah suuragalna ay tahay in uu labadoodaba gacan saaro xanaaq haya awgii ayuu waxa uu soo dhaqaaqay dhankii ay joogtay xaaskiisa iyo ninkii ay xabsiinayso waxba ma uusan hubsane xanaaqii uu la socday markii uu goobtii soo gaaray ayay xaaskiisii ku tiri wow gacaliya soo dhawow isagoo xanaaqsan ayuu yidhi haddii aad macsiyeysaneysaan maad bulshada kala dhuumataan oo meel gaara ku macsiyeysataan xaaskiisii oo dhoola cadaynaysa ayaa ku tiri xaaji isdeji wiilkan waa walaalkayga ila dhashay ee aan kuu sheegay inuu dibadda ku maqnaa walaalkeedna waxa ay ku tiri kani waa xaajigayga ee barasho wanaagsan seedigii ama walaalkii gabadha oo ama kaag iyo fajac la yaaban hadallada khaldan ee ninka afkiisa ka soo yeeray ayaa ku yidhi seedi barasho wanaagsan arrintaana gogol ayaa inooga taalla ee caaway la imow cid ama odayaalka mas-uula gurigan isugu kaayakeen waa uuna ka tegay ceebi tacaal cidda uu leeyahay maad la macsiyeysatay xaaskiisa waa walaalkeed asagana waa seedigiis waana halkii ay soomaalidu ka dhihi jirtay haddaad maqasho ceebta allaha asturo ceebi ma asturnaa arrintu waa ay sii socotay waxaana lagu ballamay in caaway loo fariisto hadalkii gefka ahaa ee kasoo yeeray ninka gabadha qabay ee uu u geystay seedigiis ama gabadha walaalkeed waxaa la gaaray habeenkii xilligii lagu ballansanaa mar labaad ayuu waxa uu is yiri arrintani odayaal haddaad u geyso amay arrinta kugu sii ballaarataa bal kaligaa u tag oo isku day inaad soo dejiso waxa uuna soo aaday gurigii gabadha reerkeeda ha aadin lahayd ha ka daro dibi dhal markii uu gurigii soo gaaray isla markiiba waxaa albaabka ka furay wiil yar oo gabadha la dhashay xilligaasi korontada daydka waa ay dansanayd balse qolka waxaa kusii jiray odayaashii sugayay odayaasha kale ee garta qaybta ka ah daydka oo nalku ka dansanaa waxaa taagneed haweeney sii jeeday markaasi qof dumar ah ninkanna ma uusan ku ogeyn reerka gabar aan xaaskiisa ahayn asagoo u haysta xaaskiisii ayuu barida ka dharbaaxay haweeneydii taagneed wuxuuna ku yidhi xaaji waa la ceebeysan yahee odayaashii ma gudahay igu sugayaan haweeneydii taagneyd ayaa soo jeesatoo ku tiri qofka aad gadaal ka dharbaaxayso waa gabadha hooyadeed odayaashiina waa ay kuu joogaan arrintaana gar kale loo raadin maayo oo isla goobta ayaan keeni doonaa ee sii soco tubatii kale ka daran asagoo yaaban ayuu gudihii galay halkaasna waxa uu la tegay 3 qalad oo ah kii koobaad uu seediga ku xadgudbay kii labaad oo ah ballantii uu ka baxay inuu odayaal keensado asagoo kaligiis u yimid iyo qaladkii saddexaad oo ahayd inuu sodohdiisa sii jeeda oo dharbaaxay haddaba halkaas ayay odayaashii waxay kaga furteen gabadhoodii asagiina ay soo direen asagoo dhan walba aan waxba fara ku haynin dulucda ujeedadana marka maxay tahay aan usoo qaatay aan ka dheehan karno fudeydka waxa lagu magacaabo inta badan waxa uu qofka dhaxal siiyaa khasaaro waana tii hore loo yiri hubsiimo waxaa la siistaa hal geela waxyaabo badan oo waxaa jira indhahagu markay qabtaan qaldan balse sida aad u fakaraysa aan ahayn oo markii aad sii dhex gasho ama aad si degan aad u fiiriso noqonaya sidii aad moodaysay si ka duwan mar walba ballanteenu waxay tahay hubsiimo deganaan iyo wax walba khaldan oo aad aragto inta aadan hadalkaa tegin inaad u kurgasho si aad go'aan sax u hesho waa Axmed Raas oo idin leh. Assalaamu calaykum.